يعني السعودية waxaa la siiyey boqolkiiba 30 la siiyey 100 sano laga saxiixay 100 sano ayaa laga saxiixay marka haddana Soomaaliya maadaama ay daciif tahay oo ay kala daadsan tahay dadkeedii isnacladayo yani ay isu tanaazulaynin gobolka wadanka ay kala gogoynayaan gobol kala goynayaan xilligii taariikhda ugu xumaa Soomaaliya maanta ay taagan tahay cadow kasta ka faa'iideysan kara marka ha oranin maxaa laga faa'iideysanaya waa laga faa'iideysanay wali waa lagu boobay wali waa lagu dhici haday suurtagal tahay marka waxa tabardarada shalay aanay bad iyo muran badeed bajiri jirin markaan dawladda ahayn maanta maxaa keenay tabardarada ma haysataa keenta waxa keenaysa in dadka Soomaaliyeed ay isbahdileen iyaga istaciifiyeen oo maanta Soomaaliya ay dhulka taalo marka khayraad far badanna waxa way leedahay hanti far badanna way leedahay marka taas marka waxay keenaysaa marka in qof kasto hawaysto inay Norway hawaysto in Mareykan uu hawaysto in Kenya ay hawaysto in Qatar ay hawaysto in Imaaraadku hawaysto in wadan kasto hawaysta taas ay keenaysa way kala darsantahay tusaale yaraan ku soo qaada walaaliyeen waxa dad weyn loo sheega ma ahan shakiran kaga sheekana sheeka Soomaaliya waxa way islaam ba waxay dhashay 5 wiil oo nacas doqone 5 wiil oo doqoma dhashay nacasine aabahood wuxuu ugu tagay khayraad badan buu ugu tagay marka dadkii markii ilma adeerta ahaa iyo dadkii la deganaa marka waxay ducay marka inay dadkii boobaan inay ilmi xoolaha ka qataan ba waxa waa doqome aan xoolaha ka qaadana leeyri habar marka aqli badan baa dhashay waxay tiri waxaad yeelaysaa birito xulin wala ay tiri tomorrow markii la gaaro birito xulin wala dhacayaa laakiin talayra inay tiri waaga markuu bariyo dadka soo fahmiyay aan jirin sunta oo 3-4 saac la gaaro afar shantii iska soo horjeesta dadkaas xagga fidis soo horjeesta wax dhulka xariiqa xagga fidisteen oo iska soo horjeesta dhulka xariiqeed dadku waxay warna markii doqomaha waa tashanayaan baa leeyahay xoolo naga daaya naas mardu dhaqaaqana waxa weeye waan la inaydeen marka xoolaha ka daayeen hadii maanta